واغرسي فينا عناوين اللقاء قد سمعونا منك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن مرلبات يوم مركلبا واحد كسر دواتان برنامج كي تحنا قيبتي سيسدحات برنامج كمان توعن كسر قادة دونا قصات وحساب بدن قصة أو عبان كيدو يهي هويني دي دور سنة يورقي دمع بدنا قفكي دور سنة ذا وحابد بادين يا الله لباتو لبأوسو وجهدا ربي سبحانه وتعالى كتاب كيس منزل كوحا وكل يهي ومن يتق الله يجعل له مخرجا روحي إيبا كبقى إيبا وحا ويلا مخرج وحا دعدين صالحة وكنا لا نلش دحدحاتك أيا وحا وضمعي إن أو قرسدو وحا ونقرسدي قبر آت وقروح بدن ودين تآت وغفي عن ننكي أيا جعلاتي هويني دي يدنا واي جعلاتي مدك دبنكي أيا دمعي إن أو سفر قالوا شقاء صوبح دي درادت وحا ونكفكري قعن آمنة أو كو آمني لها جعل كيسا gabadhuna wax reer ma isan lahayn oo ay ka geeriyoodeen asagana waxa ugu dhawaa walaalkiis la dhashay oo asaguna reer lahaa gabadhii waxa uu ku aaminay walaalkii si aysan u cidloon waana uu kala dardaarmay dabadeed safarkii ayuu galay maalmo kadib ninkii la aaminay ayaa qiyaanay walaalkii waxa uu nadamay gabadhii lagu aaminay balse gabadhii waa ay ka diiday waxa ayna ilaashatay sharafteedii waxa uu ugu goodiyay in uu fadeexeen doono haddii ay ka ogolaan weyso waxayna ugu jawaabtay waxaad doonto samay waxa ila jiro allah mana i hoojinayo inta kadib ninkii ayaa safarka ka soo laabtay inta aan lees wareysan waxa booday walaalkii khaa'inka ahaa waxa uu walaalkii ku yiri tanna ku noqon maysa iska fur waxa ay damacday anigoo walaalka ah ninkii ayaa xanaaqay waxa uu furay gabadhiina ma uusan ka dhagansan wax hadal ah balse waxa dhibaato ahaa gabadhu ma aysan garanaynin meel ay aado ehel intii ugu dambeysay waa ay geeriyoodeen waxay u tagtay nin sheekh ah oo ay diris ahaayeen waxayna u sheegtay dhibkii qabsaday ninkii sheekh ahaa ayaa ka naxay kuna dhahay waxa ay jooga canug yar oo ay dhimatay hooyadii waxaadna ii hayn doontaa canuga yar lacagna waan ku siinayaa haweenaydii ayaa ogolaatay duruufaysataa awgeed balse muddo kadib waxaa nasiib xumo ahaa mar labaad waxaa damcay wiil guriga kula noolaa waana ay ka diiday waddo weliba ay u soo maray si ay u ogolaato wax weliba uu sameeyaba ma aysan ka ogolaan wiilkii ayaa dilay canugii yaraa markii uu sheekii imaadayna waxa uu ku yidhi canugaagii waxaa dilay gabadha ku shaqaysa sheekii ayaa xanaaqay balse cadadiisii liqay iskana cafiyey oo ku dhahay wax aan ku geysanaya ma lahan ee qaado 2 diinaar xaafadeydana iiga bax gabadhii ayaa iskaga tagtay iyadoo murugaysan wadada ay kula kulantay nin la garaacaya oo qaylinaya kadibna waxa ay weydiisay sababta loo garaacaya waxaana loogu jawaabay deen ayuu bixin waayay markaas ayay weydiisay imisa ay gaaraysaa deenta lagu leeyahay waxaana lagu yiri 2 diinaar 2 diinaar ay ka bixisay waana la sii daayay ninkii ayaa xog wareystay gabadhii una mahad celiyay kadib waxa uu u sheegay labadooduba in ay dhiban yihiin waxa uu ku yiri ka waran haddii aan iskaga tagno magaaladan duruuf jirta awgeed gabadhii way ogolaatay mar labaad ninkii ayaa waday gabadhii markii ay gaadheen badda ayuu ku dhahay doonta sii kor waxa aan la heshiinayaa naaquudiyaha waxa ay kortay doontii asaguna waxa uu u tagay ninkii doonta waday waxa uuna ku dhahay adoontan ana iskale subhanallah adoontan ana iskale ee ma iga gadanaysaa ninkii ayaa ka gatay asaguna waa uu dhuntay gabadhii maskiinta ahayd waxay aragtay doontii oo sii dhaqaaqaysa waa ay yaabtay waxa ayna raadisay ninkii waa ayna weysay inta kadib gabadhii waxa uu imaaday naaquudihii iyo asxaabtiisa waa ayna damceen waxa ayna u sheegeen in ay ka gateen sayidkeedii gabadhii ayaa diiday allana ka bariday in uu badbaadiyo allahna waa uu badbaadiyay isla markiiba waxaa maashooday doontii dhammaantoodna waa ay ku dhinteen markii laga reebo gabadhii oo allah waxa uu ku badbaadiyay alwaax ka jabay doonta waxa ayna alwaaxii ku imaaday iyadoo suuxsan jasiirad yar oo uu joogay boqorkii ka talinaya magaaladii ay ka soo tagtay allahu akbar boqorkii ayaa amray in la geeyo qasrigiisa gabadhii waa ay soo miirsatay qisadii ku dhacday min bilow ilaa dhammaad waa ay uga sheekaysay nasiib wanaag waxa guursaday gabadhii boqorkii magaalada ka talinayay maalmo kadib waxaa dhintay boqorkii qasrigana waxaa la wareegay gabadhii واغرسي فينا عناوين
اللقاء قد سمعونا منك في أرقى سمو وتعاهدنا على صدق الوفاء دار خير قد بناها قول ربي نعمة اللبنات